horeeyaan laba madaxweyne Axmed waxaan idin leeyahay hambaliyo sida quruxda badan ee aad xilka u kala wareegteen dhammaan inta timid anoon kala qaadaynin waa idin wada salaamay waxaan idinku salaamayaa mar kale salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu حقيقة واليو كذي أو قدومي برلمان كجوجو لكن قندري هوين كان كقاط إنتاس الحمد لله وحافر حله إلهي ما هذا النسيء عاوه هل كان يناسكو إيمانه وهو برحد كوين أيان آذي لهين ضد كان إنك بدن أيا إيمان لها لكن عذر كاس ابتلاء له أدونك كومي ريستا نجن نسقامي وأنا كعذر دارنينا حقيقة بالشذا رير قلمدك يسومالي إذا أنت سمحت شعلبة سيد دبقة أي أبو فرحين سيد دبقة أي إنه أسوء دويين إن أي لبا أحمد حلك كالوريجستان أي ولي ودت كود أطرية وحامنال يشرف له حل لبعنا دي كشقي دولة الدحى ووجوري مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية يرئيس الوزراء يوليبا برلمان كلبدي سقلبا آد أي أمهات سيهين وحكلته أيضا مدن عيدا كحوج أو مانت أي تهسنة جورة دي وحن لا همبليو ميل والبؤات شوكتان عيدا ك ميل والبؤات شوكتان وحن لا همبليو وحنا هو بعد دولة الصومالية إيا النجبة إن انكشقين دون السيد اللي إذين كابلها وعد ميلكو جاري لهيدين إن شاء الله أنا قصيقوني إيه تابنا إيسا إن أن عيدا كأوهم بليايو فرحدان أنا عاود شوجة أو فرحدان لعويني إني مركلة فرحداس أن أوهم بليايو فرصدان أهله سفي عن أي تابنا إيسا أنا قوم حايلي أبهي عبد فاندي وهذا هذا مقليسين ناستا يقول بحذا يوم فاهمة ذيك اللي أنكو سيدان لأهاي وحو هادتك أسو هالجمي ودن كان جارهان قلمدك عيدا كذي فدرالك كهر أنت أن لديسين الدولة الصومالية أيو أها وحو هالجموين وحو عسكري وحو عيدنك حوق دلك الصومالية إلى لينشري دفاعي شري قلمدك نسو جارسية إن الدولة تمادو رميق اللوتغو أيو كمد أها أبهاي waxaanan hubaa qof kasta oo galiya input galmudug ama Soomaaliya in taariikhdu ay xis doonto ilmuhiisuna ay ku dhiiran doonaan inay iyaguna ka qayb qaataan inay dhisaan wadankooda alxamdulillah meel dheer ayaan ka imid waxaan tagay qurbaha qof kasta oo aan aqaan ama familkayga waxay weydiiyaan su'aasha ma miyigi baad ku laabanaysaa adoo jaamacadii Yurub dhameeyay وإلى يا بناين وحي يراهدين فاضموي وابا استقالة dadkii laba dawladood bay noqdeen iyo saddex iyo afar qolo kalena waa carootay sidee la isku qaabilsiin doona waxaan u sheegay rajada dhowra waxba ma halaabay caawaan u sheegayaa waka aad u jeedaan laba Axmed inay hagaajiyeen hawsh waxa ii farxad ah oo ii bishaaro ah inay galmudug midaysan tahay baarlamaan buuxa leedahay madaxweyne ku xigeen leedahay madaxweyne xaafna uu ku soo midoobay oo uu dhiibay hogaanka madaxweyne qorqor farxad ay ii tahay xaqiiqatan anigu dadka qurba joogta kaliya mar walba la hadlaa laakiin dadka Soomaaliyana dabcan way taaban doontaa waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan u adkaysta dhibka kuna shaqeeya inaad gaartaan horumar si midnimada si wada jira midnimo loo gaaro insha Allah gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha galmudug codkooda anoo ku hadlaya ka guud ahaan gabdhaha xildhibaanada 7 gabdhood baan nahay afkoodii anoo ku hadlaya waxaan idin leeyahay dawladda hambaliyo madaxweyne xaaf iyo madaxweyne Axmed waxa idin leeyahay labadiinaba hambaliyo sida quruxda badan ee xilka u kala wareejisateen madaxweyne Cali Ciidna waxaan leeyahay dadaalka aad muujisay ee dheeriga ah waad ku mahadsantahay adigana حقيقة أنا وحنا سويدية هل سؤال أو dadka xagee kala geyn doontaan markuu coronavirus uu dhamaado
لأنه galmudug way socotay cagta ayay furtay mar dhowna inta noo dhimaniyo badaheena iyo dekedeena iyo dalaqeena la soo bixi doona talo xageed kala geyn doontaan ayaan ka shaqeeyaa kana fakaraa waana huba madaxweyne Axmed Qoorqoor inuu ku filan yahay qorshahaasna uu ila dejin doono insha Allah markaan fursadaydan yartaa aan ka faa'iideysto waxaan leeyahay dhalinyarada dibadda ku maqan dhulkiina ku soo laabta imaada waxna ka qabsada meeshaan aan fadhino waa golihii baarlamaanka oo caawa ay galmudug ku kala wareejisanaysa xilka si nabad ah ciidanka ka shaqeeyay amnigeedana waa u mahad celinaya wax badan baad fadhideen anigoo ku hadlaya codka dawladda galmudug waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin dadka ka soo qayb galay meeqaam walbo aan noogu timaadeen sida sharafta badan ee aad noogu tixgeliseen madaxda kala wareegeeda aad noogu timaadeen waa mahadsantihiin jazaakumullahu khayr aniga haddaad ogtihiin waxaan ka soo jeedaa dhashi culimada si dawladdan ay noogu hana qaado bal aan faatixada hal mar isla wada marano insha Allah faatixa آمين إله